بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدان إذن سي حالة جوت ماشي أي مريس سوماليا كورونا فيروس. وحال لقى هلا وحالة عصب لهلا أفرتن يلح قف أفرلاتك ساعة وقدام بيسي لب وحا يصدن السدح لدقنا وحا واي سدح طبعا سديد إلى باتن كمد أدتك لقى هلا دأدو ذو وحي أود حيسا لباتن إلا يصدن جر taasoo u dhiganta boqolkiiba 61 dadka laga helay 41 xaaladood waxaa laga helay gobolka Banaadir 5 xaaladood waxaa laga helay Puntland tirada guud ee dadka laga helay waa 436 5 qof ayaa u dhimatay tirada guud ee dhimashada waxay noqonaysaa 23 tirada guud ee bogsatay wali waxay ku taagan tahay 10 وحالة جود وحن ربع إن مر لبعض دول مرو كهرتج إنه آد مهم وياهي إن لقت حدر عذر كان سيد الله حكمين لها وواجبنا وذا صارن إن لجود ذا على نظافة ده إن ليسك إلى اليوم يلها بوق يو تتك بدن أي جيران إن مركبنا كله بحاي أفكار لحرته وماسكر إن لقاته أي مهم تهاي وحي هذا كدم بي آدي أي خبراء أي وزارة عافمات وقلت ليان قفك إنه أفك حرته بابور تميلها عريري لسك إلاليو ميلها ليسقو إيمان كرو عريري أهل لسك إلاليو دولة وحي بدأ دذال آد وتربضن ما دام التراد السكر ليسو إن الراديو إسبيتال كلو أن مرتيني أهين أولو داويو هدي الله إتمو وحا حالي لكين ديارة تركيا كحيرنا dad badan oo Soomaaliyeed oo xal lagu guuleystay inay yimaadaan dadkaas waa laga warqabaa waa dad intooda badan soo sameeyay kulligood soo sameeyay isbaarid oo iska soo baaray cudurka coronavirus kadibna la soo qaaday dadkaas guud ahaan koraa laga ogyahay waxa la haayaa contactigooda wax allaale wixii service adeeg caafimaad ay u baahdaan diyaar loo leeyahay ilaahay naga haaya lacalla hadii loo baahdo in la test gareeyana mar kale waa la test gareyn karaa waxa kale oo jira dawladda Soomaaliya waxa soo gaaray in dad badan oo Sacuudiga ku xayiran iyo meelo kale adduunka kamid ah ku xayiran inay isu diyaar gareynayso inay keento oo ay waajib ku tahay in muwaadiniinteena meelaha qaarkood ku xayiran la keeno dadaalka aad u badan yahay diyaaradii shalay timid xoogaa waxay wadaa daawooyin iyo reagents loogu talagalay qalabka wax lagu baaro wali lama furfurin dhalinyaradii ka shaqeynaysa wasaaradda iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ilaa ilaana ku mashquulsan waxa bilaaban doona biri hadii alla idmo hadii ay macquul noqoto isku aado wax walba waxa bilaaban doona in xafiiska ra'iisul wasaaraha خبراء WHO ka tirsan iyo wasaaradda caafimaadka ay hogaaminayso in la aadi doono gobolada maamul goboleedyada maamul kastana la tagi doono la soo assess gareyn karo waxyaalaha ka dhiman waxyaalaha ay aan ku kaalmeyn karno wixii qalab oo labka ah ama waxyaalaha PPE la isku qofka bani aadamka ka shaqeynayo isbitaalada ama shaybaarada uu gashan lahaa oo isku taxadiri lahaa wax allaale wixii la haayo si loola qaybsado la soo ogaado xaalkooda oo guud ahaan ma aragtay laga warqabo oo isku si loo isla socdo hadii alla idmo ilaahay waxaan ka baryaynaa cudurkan aafadiisa inuu naga najeeyo inaan wada dadaalno oo qof walba oo bulshada kamid ah uu wacyigelinta qayb ka qaato in dadka waaweyn cudurrada raaga qaba la ilaaliyo xanaano gooni ah la siiyo in gacmaha mar walba la dhaqo saabuun iyo lagu dhaqo iyo wixii loogu talagalay nadiifiska in meelaha ciriiriga aan la tagin in qofka haduu dareemo calaamadihii cudurka lagu sheegay inuu raadsado uu wacdo telefoonada toll free-ga oo meel walba ka furan uu wacdo oo uu raadsado wixii caafimaad waxaan ilaahay ka rajaynayaa caafimaad guud inuu siiyo inta cudurka qabta inteena kalena naga badbaadiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh